بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maalmaha kan saad la socoteenba waxa socotay howlgalladii joogtada ahaa ee ka socday gobolada Galgaduud iyo Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe arbacadii waxaan ii sheegnay dagaal ballaaran inuu ka dhacay deegaanka Xawaalo Xuseen iyo Qurac Dheere oo ay laba ciidamada xooga hubaysan kacdoonka shacabka Soomaaliyeed laba looga dhaawacay cadawgeena laga qabtay dagaalkaas waxaa ku xigay dagaal shalay khamiistii bilaabay barqadii biraamay 9 aroornimo meesha la yiraahdo Ceel Hareeri waa deegaan 15 kiiloomitir u jira Aadan Yabaal wuxuuna ka tirsan yahay degmada Maxaas deegaanka Moqorkori halkaas ciidan aad u badan oo ay ku ururiyeen ugu tala galeen inay Aadan Yabaal ku difaacaan iyo meesha isugu keeneen weerar dagaalkii shalay 9kii bilaabmay waxa howlgalkaas ka qayb galay xoogaga kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee hubaysan iyo ciidamada danab laba cutub oo ka tirsan ciidamada danab iyo ciidankaas ayaa galay duqeyn xoog badanna way ka dhacday dagaalkaas muddo dheer buu socday wuxuu Ceel Hareeri istaagay xalayto shalay galab markii ahayd 5:00 yuu istaagay dhacdada meeshaas ka dhacday waxay ahayd arrin la yaab leh furunta koobaad ee boqol wada socota hal mar uga dhimato waa midii koobaad weeye ee dagaaladii socday mar walba cadad badan baa ka dhimanaya laakiin boqol wada socota meel laga helo meydadkooda waa midii koobaad weeye duqeyn cirka ah iyo weerar dhulka hoostiisa ah yaa isugu darmaday cadawgaas ilaahay waa jabiyey ciidamadii iyo shacabkii Soomaaliyeedna guul yay maanta ku geeraarayaan xalayto markay ahayd 8 fiidnimo xog ciidanku ay ka heleen iyo xoogaga kacdoonka shacabku ciidan xog ay ka heleen Aadan Yabaal oo dadka deegaanka ay heleen si kastaba ha ku helaana waxay ogaadeen in ciidan ka soo baxay Aadan Yabaal oo u soo socdo inuu u soo gurmado Ceel Hareeri waxaa ciidan loo geliyay meesha la yiraahdo Garas Magan oo 12 kiiloomitir u jira Aadan Yabaal oo ka tirsan degmada Aadan Yabaal Garas Magan baa xalayto 6 saac ay isku heleen 8 habeenimana waa lagu kala faraxasho waa la jabiyay waxoodii fariinka ahana dib waxay ugu carareen Aadan Yabaal bay ku yaaceen ku carareen guushaas ballaaran oo halkaas ka timid runtii waa guul ballaaran muhiimaddu waxa weeyaan cadawga waxaa lagu ogaadaa goormaad guulaysatay oo cadow ka adkaatay markaad disho ama aad qabato hadduu dhaawacmo kaa fakado bari waa ku weerari karaa howlgabna waa noqon karaa oo khadka waa ka bixi karaa fursada laakiin dhaawaca maanta gaaray wuxuu ahaa dhaawac aad iyo aad howlgalladii la soo geliyey dhimasho hal mar ahoo 100 mar ay ku dhacday waa markii koobaad weeye wararka aan anagu inii sheegayno laablakac iyo guul jacayl iyo midna maaha waa xogag rasmi aan ka helno saraakiisha dabadeedna aan soo marino sarkaalka howlgelinta iyo taliyaha xoogga markay noo soo xaqiijiyaan oo hubiyaan yahdaan waa sax markaasaan shacabka Soomaaliyeed u sheegnaa ka hor uma sheegno saakayto waxay baawur qarax oo Leyla Calaawi ku soo weerareen masaajid Cali Guduud laakiin xogtiisa waa la helay waa loo diyaar garoobay laba baasuka lagu dhuftay baawurkeena waa qarxay naftiisa haligihii la socdayna meeshaas uu ku gubtay innagana wax dhibaato ah nama soo gaarin waxa la sheegay dad aan meesha joogin oo ciidanka xoogaga kamid ah biro faniino inay gaareen oo dhacway iska fudud laga bixbixiyay waa markii qarax dhaco waxaan fanfaniino dad meel fog jooga gaaraan laba nin baa la ii sheegay faniinka yarka oo gaaray ayagana wax hadda dhaawac xataa fudud waa wax ka sii hooseeya dhaawac fudud aan hataa ahayn intaas la sii sheegay naloo sheegay guulahaas runtii hal baan rabaa inaan u sheego 2011kii dagaalkii markuu xamar ka bilaabanayay waxa ka jirtay abaar aad u fara badan abaartii 2011kii xabadda mar meeshan ka bilowna maalintii aan weerarnay habeenkii roob baa ku daayay saraakiishii joogtay iyo dadkii joogay iyo ciidamadii joogay hal weydiiyay arrintaas waa arrin aan xaqiijiyay way anigu saraakiishii furunta ku jirtay baan ahay gobolka Banaadir
ماشي عاوة مركان ما ديق أيجا عن دادنا هبينك الرب إيمانية تاسو واحد دليل وتاي إلهي وحور رال لكي هي هدال سميسو رحمة دي ساكو إيمانيس نيك أبارو هاي سو دقالك قل إلهي عدو قسان الله دقال dadka caruurta iyo haweenka iyo maatida iska leynaya gubaya hatooda burburinaya diinta ku been abuuranaya beenta ka sheegaya ilaahay iyo nabigiisa maxamed calayhi salaatu wasalaam nimankaas cadowga ah kor inta malaa'ig looga soo dejiyo leyn mayso innagana loogu talagalay ilaahay anagu noogu talagalay inaanu ka qabanno bulshada haddii aynaan ka qabanna cara Allah dhacaysa haddaan ka qabanna raxmadiisa degaysa waxaad arkaysaa meel kasta oo lagu weeraro oo cadowgaas lagu jabiyo rabba imaanaya 2011 كان أرنتاس أرن حقيقة ويا دب أفكر ضدك مفكرين تا دجال كاسو مركو بلا واحد شرت عبارتي دايريت أو هل كان كوي مدح الدون كتير سنة مدحنا أردوغان وكلا ربكو حنا بلو ما أنت حبضوا بلوني أنت أصلا كوسو جبين إياه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.